So marka aynu rabno inaynu isticmaalno Git waxaynu u baahannahay some source projects u baahannahay si aan Git ugu shaqano. So hadda meeshan waxaa ku haystaa aan index.html oo ah file iska fudud oo simple ah bas waxaynu ujeedadiisa ay tahay in uu noo noqdo starting point oo aan macnaha Git iyo GitHub aan ku sharxno only kaliya. Markaas Git iyo GitHub waxaa ku sharxay waxaynu isticmaali kartaa mobile web app waxaa rabtaa u isticmaali kartaa. Marka aniga hadda kan ayaa starting point noo ah. So aniga hadda waxaan isticmaalayaa Visual Studio Code oo kala degi kartid as window ahaan haddii isticmaalaysa haddii Mac haddii Linux kulli u isticmaali kartid. So waxa waaye waa powerful IDE waaye oo ton of configurations uu leeyahay IDE badan uu leeyahay wuxuu leeyahay extension badan ka wada marka waajibna maaha inaad isticmaashid waxaa isticmaali kartaa code editor kale sida Sublime Atom isticmaali kartaa. Marka kan ayaan dooranay anaga si aan ugu sharxno maadaama uu yahay mid iska fudud oo simple ah oo qof kasta luqad walba lagu rangareyn kara JavaScript TypeScript only luqad kasta oo wuxuu leeyahay intaas oo extension oo kala soo degi kartid macnaha si uu ugu fududeeyo shaqadaada. aynu soo laabno projecti meeshan waxaan ku haysanaa folder ay ku jiraan setting.json marka kan uma baahnid as ahaan Windows Zoom level kan aniga ku sharxanayo laana waxa waaye for recording purpose waa inuu Zoom kan qofka daawanaya inuu isu dhaweeyo aan ugu talagalnay bis. So sideen u isticmaali karnaa Git cashirka ku xigeen sharxi doonaa.